السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadka Soomaalida ee maanta idageysanayuu Ramadaan Kariim dhamidiinba maadaama aynu ku jiro bishii barakaysnayd ee Ramadaan. dhinaca kalena waxa aynu ku jiraa xaalad adag oo cudurkan salaha ee guurguuree dadka markaasi u kala taltallaaba ee coronavirus-ka loo yaqaanay adduunka maanta gabagabeynaya. ilaahayna waxaynu ka baryaynaa in cudurkaasi uu alle inaga badbaadiyo inta u jiiftana uu markaasi ka kiciyo oo uu ka samata bixiyo inta ku dhimatayna uu markaa u naxariisto. maanta haddaba waxa aan doonayaa inaan ka hadlo arrin inagu soo noqnoqota oo u baahan xaqiiqadeeda in laga salgaadho. waa amuurta ku saabsan Somaliland kolkii ay xorriyadda ka qaadatay gumaysigii Ingiriiska 26 Juun sanadkii 1960 ma noqotay dawlad xor oo jirta oo beesha caalamka ka mid noqota oo la aqoonsan yahay. amuurta intaanan u gondadegin aan wax yar oo hordhaca ka horraysiiyo. xilligii gumaystayaasha reer Yurub ay soo galeen waddanka Soomaalida uma dhaxaynin wax xuduudo oo dhulkoodu waxa uu ahaa mid isku furan oo aan markaasi xuduudo lahayn. markii haddaba gumaysigu yimi arlada Soomaalida ee uu xuduudaha u sameeyey ee uu kala qaybiyey waxaa markiiba bilaabmay halgan iska caabin oo dadka Soomaalidu ay ku diidanayeen amuurahaasi gumaysigu la yimi. halgankii ugu horreeyey waxaa bilaabay Sayid Mohamed Abdullahi Xasan oo hogaamiyey ciidankii daraawiishta la baxay oo markaasi saddexdii gumaysi ee arlada Soomaalida xilligaasi joogay Geylan iyo dagaal weyn ku qaaday. waa Ingiriis, Talyaani iyo Abasiiniya. halgankaas waxaa isna soo raacayay Xaaji Faarax Omar Ileeye oo isna markaasi xuquuqda iyo gobonimada dadka Soomaaliyeed u doodayay una halgamayay. Sheekh Xasan Barsame ayaa isna koonfurta ka kacay oo jiida ku ologale Marka iyo Muqdisho markaasi dagaal ka galay. Sheekh Bashiir Sheekh Yuusuf ayaa Burco ka kacay isaguna xilligii dagaalku dhammaaday waa dagaalkii labaad oo gumaysiga ku gabagabeeyey. xilligii haddaba uu sii dhammaanayay dagaalkii labaad ee adduunku waxaa adduunka saaqay neecow gobonimo doon oo markaasi ka bilaabantay dhulalkii gumaysigu haystay. dhinaca Soomaalida waxaa ka aasaasmay ururkii SYL oo ahaa urur weyn oo markii dambena Soomaalida oo dhan dhulalkeeda ku faafay laakiin koonfurta ka bilaabmay. geesta waqooyiga waxaa ka jiray SNL USP iyo markaasi ururkii kale ama xisbigii kale NUF. hal ku dhigyo iyo halqabsi isku mid iyo ujeedooyin isku mid ayaa halgankaasi lahaa labada geesoodba haddii ay noqoto koonfurta iyo waqooyiga iyo dhulalkii kale ee Soomaalida ee gumaysigu haystayba. waxaana halhays u ahaa halkudhigii Faarax Omar ee dhulkaygu waa ka yaryahay wax la qaybqaybiyo dadkayguna wuu ka itaal daran yahay in la rarto. dadka Soomaalidu waxay galeen xornimo iyo midnimo ay ku goobayaan shanta Soomaaliyeed oo meel la isugu keeno. waxaa isku xidhnaa markaasi dareenkooda waanay iska warhayeen oo meel kasta iyo gobol kastaba waxaa ka jiray qorshe iyo hanaan ay isugu heelinayaan. haddaba markii uu dhacay dagaalkii labaad ee adduunku intii uu socdayba waxaa dhulalka Soomaalidu ay gacanta u galeen gumaysigii Ingiriiska marka laga reebo Jabuuti oo ku jirtay gacanta Faransiiska oo ay Ingiriiska markaasi xulafo ahaayeen. mustacmaradii Ingiriisku waxa ay soo dejisay qorshe markaasi ay doonayso inay ku midayso gobollada Soomaalida oo ay gobonimo ku gaadhsiiso islamarkaana ay iyadu abbaan u noqoto. waa fikirkii weynaa ee Soomaali weyn. haddaba sida Jimciyadda Qaramada Midoobay berigaasi ay soo jeedisay ee ahayd in waddamadii dagaalka ka hor gumaystayaasha ku hoos jiray lagu celiyo gumaystayaashii haysan jiray ayaa waxaa dhacday in dhulkii koonfurta ee Talyaanigu jeestay dagaalka ka hor afti laga qaaday lagu kala dooransiinayo ma Talyaani baa laydinku celiyaa mise Ingiriiskan idinla jooga ayaa idinsii haya oo 10 sano ee soo socda gobonimo ina gaarsiiya. ayaan daro kooxdii ka midka ahayd xisbigii SYL ee Talyaani raaca ahayd
ayaa waxay u ololeysay in talyaanigii jabay dib loogu celiyo markii hore gumaysanayay koonfurta Soomaaliya. taasi ayaana dhacday oo talyaaniga ayaa gacanta dib loogu celiyey dhinacii koonfurta oo gobonimo gaadhsiinayay markaasi. ingiriisku waxa uu markaasi sameeyey aargoosi waxaan u kala daadiyey qorshihiisii Soomaali weyn. NFD waxa uu dib ugu celiyey oo ku sii fogeeyey dhinaca Kenya inay ka tirsanaato dhulkii aagga kaydsan ee hawd aan reserve area-na waxa uu ku daray oo siiyey Abasiiniya. Jabuutina waxay ku sii fogaatay gumaysigii Faransiiska. arrimahaasi waxaa ka dhashay cadho iyo gadood weyn oo dadkii Soomaalida markaasi la soo kulmay, waxaana taasi ay cirka u soo baxday 28 February 1954 markii dhulka reserve area Abasiiniya gacanta laga geliyey. waxaana dadku markaasi ay doonayeen in dhulka Soomaalidu uu wada jiro oo aan la sii kala qaybin marka gobonimo la qaato. waxaana hanqalka la soo kacay gobonimo doonkii laablakac weyn oo xornimo iyo midnimo doonahina oo isku sidkarina markaasi wuu bilaabmay. dhinaca waqooyiga 17 bishii 2 1960 waxaa ka dhacday doorashadii golaha sharci dejinta Somaliland oo ay ka soo baxeen 33 xubnood oo baarlamaanihii oo 4 wasiir markaasi laga dhex doortay. shirkoodii ugu horreeyay waxaa golahaasi sharci dejinta uu yeeshay intii u dhaxaysay 4 ilaa 6 Abriil 1960. waxaa kulankaasi goobjoog ka ahaa ninkii Ingiriiska wakiilka uga ahaa mustacmaradda Somaliland Douglas Hall iyo xogayihiisii Philip Carrel. golaha sharci dejinta Somaliland waxa uu xilligaasi soo saaray go'aan hoosta ka xariiqayay in gobonimo la gaadho oo markaasi midnimana lagu sidko oo aan labadaasi laga dhigin laba shay oo kala reeban oo aan isku mid ahayn, laakiin uu noqdo isla hal qodob oo qura ah oo laga wada xaajoodo xornimo iyo midnimo. wafdi amuurtaasi kala hadla mustacmaradii Ingiriiska ayaa loo diray magaalada London ee waddanka Ingiriiska. waxaa wafdigaasi uu kulamo kula yeeshay 2 ilaa 5 bishii May 1960 magaalada London xogayihii mustacmaradaha UK. wafdigaasi Soomaalida amaba Hargeysa ka yimi waxaa hogaaminayay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal, waxaana ku wehelinayay Axmed Kayse Xaaji Ducaale, Garaad Cali Garaad Jaamac iyo Xaaji Ibraahim Nuur Jaamac. waxaanay halkaasi keeneen go'aankii uu 6 Abriil gaadhay golaha sharci dejinta ee Somaliland ee ahaa xornimo iyo midnimo wada socda oo isku hal qodob ah oo aan la kala reebi karin. haddaba amuurtaasi waxaa si weyn u caddaynaya haatan hadal uu BBC-da markaasi waa May 1960 uu u duubay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo wafdigaasi hogaaminayay. waxaanu yidhi sida aynu goordhowba arki doonno waxa aanu hadalka guntiisu ahaa in bisha Julaay 1 aynu dowlad ahaano si aynu walaalaheenna koonfureed isu raaci karro. hase yeeshee gumaysiga Ingiriisku waxa uu soo dedejiyey gobonimadii, waxaanu 26 Juun 1960 u qoondeeyey inay noqoto maalinta uu ka kacayo dhulkii uu gumaysanayay ee Soomaalida ee waqooyiga. halka 26 Juun waxaa ka dhalatay xornimadii ugu horreysay ee Soomaaliyeed ee markaasi gumaysi laga qaato, waxaana calanka buluuga ah ee xidigta cad ee shangeesta ah ee shanta Soomaaliyeed u taagan laga taagay magaalada Hargeysa. 29 Juun 1960 waa 3 cisho kadib markii gobonimada la qaatay waxaa magaalada Hargeysa ka boqolay 33 xildhibaan oo 4 wasiir ku jiraan iyo madaxdii kale ee gobolka lagu wareejiyey oo dhinaca magaalada Muqdisho u boqolay oo diyaaradu raacay. ma jirin dowlad laga dhisay Hargeysa oo beesha caalamka ka mid noqotay oo la ictiraafay amaba aqoonsi la siiyey, sida uu Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal caddayn doono goordhow. waxaana markaasi aan jirin madaxweyne la doortay oo aynu ognahay, mana jirin ra'iisul wasaare. waxa ayana xusid mudan
jaraa'idkii maalintii ka dambeysay ee 27 Juun 1960 ka soo baxay magaalada London oo ah halkii Somaliland xorriyadda laga siiyey ay fooda hore amaba bogagga hore ku xambaareen hadal u ekaa oo sidan ahaa: dadkii diiday madax bannaanidooda waxaa la diiday madax bannaanida iyo in la noqdo dal madax bannaan oo markaasi yeesho dowlad ka mid noqota beesha caalamka. waxaana taas loo sadqaynayay wax kale ma ahayne waxay ahayd midnimo Soomaaliyeed iyo Soomaali la isla doonto. maxamed xaashi ibraahim cigaal ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye hadalkii uu 5 May ka jeediyey magaalada London 1960 ayaa arrintaasi daaha ka faydaya. sidii ay ugu soo rafaadeen gobonimada, dhibaatadii ka soo qabsatay rag iyo dumarba sidii loogu xusulduubayay, iyo maalintii aynu maqalay gobonimadeennii inaynu helay sidii farxaddu ay noo qaaday. waxaynu dhammaanteenba wada xusuusannahay bishii May 5 1960 markii maxamed xaaji ibraahim cigaal uu magaalada tan London wafdi uu u soo horkacay ee uu kala soo tabaabulshaysanayay dowladda tan Ingiriiska sidii waqooyiga gobonimo loo siin lahaa. garanan maayo ama ma hubo intiina maalintaasi idaacadda tan BBC-da ee af Soomaaliga ah oo maxamed xaaji ibraahim ka hadlay khudbadaasi taariikhda gashay bishii May 5 1960 ee uu halkan ka akhriyay intiinii dhageysanaysay. hase yeeshee maanta teebkii hadalkaasi uu ku duubnaa oo aanu boorka ka tunnay ayaanu 9 sannadood dabadeed soo saaray. waxaanu maanta idinku casuumaynaa bal inaad dhegaysataan erayadii qiimaha lahaa ee uu idaacadda tan af Soomaaliga ee BBC-da uu ka sheegay maxamed xaaji ibraahim cigaal. waxay tahay in la wada maqlay maanta maxay ahayd secretary secretary jawaabtiisii waxay noqotay arrinkii sidii aynu doonaynay inuu dhacay inaa kulligii ka wada dharagsantihiin baan maraynaya. maalintii isniintii ayaan hadalkii istaad markaa waxaan umaya dowladda Ingiriiska awalba usii go'nayd waxa ay doonayaan inayna yidhaahaan hase ahaatee inbaa meesha ku jirtay waxaa la hubinayay waxaan la doonayo ee dowladnimada la doonayo mid dadkii wada doonayo, dad u qalmaana gacantooda ay gelayso inay tahay iyo in kale la hubsanayay. dabeetana 2 casho hore aan saragnayba baadniinun arrinku la baadhayay dadka meesha joogay iyo dadku sidoo wax u doonayaan iyo saa loo eegay arrinku inuu inaga wada dhab yahay iyo inuu maxay jibbo arrinku inaga yahay in la baadhayay bixi. dabeetana markii taas caddaatay maalintii Arbacadii gelinkii dambe shalayto ayuu noo yimi colonial secretary. markaa dabeetana khudbadda nimka la sheegay ayuu akhriyay. hadalkii waxa weeye guntiisii bisha 1 July 1 inaynu dowlad ahaano si aynu walaaladiin Soomaaliya isu raaci karro ayuu guntiis noqday. markaa maanta waddo dheer oo aynu soo maray ayaynu maanta maxay ahayd joognaa madaxeedii. hase ahaatee midkii ka dheer kana adag ayaa imika aynu gelaynaa. dowladnimo loo qayliyaa dowladnimada doonayna la yidhaahaa waa suura gashaa maanta dee naba soo qaylinay helay dowladnimadiina. hase ahaatee ka adag wuxuu yahay arrinka kasii adag ee maanta aynu isaga madaxa la galnay dee helay dowladnimadii, laakiin mas-uuliyad badan iyo dhib badan ayay iyana la imanaysaa. marka iyadii maanta dagaalka kii u horreeyay ayaynu maanta helaynu weyn garayn ku najaxnay. kamaanta inagu hadhayna kii ka weynaa buu ahaa. waxaa nabiga laga sheegay sallallahu alayhi wasallam iyadoo laga soo baxay dagaal weyn markii laga soo fadhiistay asxaabtii wada daalan oo wada quban oo nin waliba maxay ahayd qoontiisii dheerayo ayuu yidhi baa la yidhi dagaalkii yaraana maanta waynu ka soo baxnay kii weynaana imikaynu soo galay. asxaabtii wada naxday baa la yidhi markaasaa la yidhi yaa rasuulullaahi dagaalkaynu maanta gallay mid ka weyn ma aanu filaynin ka weyn waa maxay? dagaalkan aanu soo galayna midaynu cadow la dagaalamayna buu ahaa buu yidhi. kaynu maanta gelaynaa imika gallayna ee inoo hadhayna waxaa weeye kaynu nafteena la dagaalamayna wixii xun iyo wixii san nafteena ka celinaynay wixii xun wixii sanna ugu diraynay. markaas inagii maanta ajnabi aynu dabadda u saaraa ama aynu waddankeena ka kaxayno dhammaynikaas way naga tegaya. July maalintaa July baynu walaaladeen Soomaaliya israacayna inaguna danteena iyo dalkeeniiba iyo diinteeniiba aynu u talinaynaa. markaa ku hadhay baa hawle haysaaye taladaa maanta tala weyn weeye inaynu isu talin karno. wax badan baynu ajnabi noo talin maayo dantayadana qabsan noo talinayna leenaga bax ajnabigi inagii amaanta leenoo kala tag inaynu isu talin karayn doono iyo in kalena caalamku waa ina eegaya ilaahay waxa inagu la qabtay.